iyo taliyaha guutada labaad cali calasow iyo abaanduulaha qaybta 12 abriil generaal maxamuud maxamed koronto iyo saraakiil kale. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa markii halkaasi in muddo ay ku sugnaayeen oo ay ka sameeyeen howlgallo ay ku baadagoobayaan maleeshiyaadka halkaasi ku sugnaa. waxa ay kadib u dhaqaaqeen deegaanka Danibalo oo hoos tagta degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe qiyaastii 10 kiiloomitir dhinaca galbeedna ugu beegan, halkaasi oo iyagana maleeshiyaadkii ku sugnaa ay iskaga carareen gabi ahaan. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaana gudaha u galay, kadibna waxa ay sameeyeen howlgallo sidoo kale lagu baadagoobayo maleeshiyaadkii halkaasi ku sugnaa. sida dad ku sugnaa deegaankaasi sheegeenba maleeshiyaadka ku sugnaa waxa ay dadweynaha ay ku soo rogeen lacago dheeri ah oo ay ku sheegeen sakawaad ah oo baad ah oo dadka ay ka qaadayeen, iyagoona cabasho arrintaasi ku aadan u gudbiyay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ugu horeeyo abaanduulaha ciidanka xoogga dalka generaal Cabdullaahi Cali Canood. haddaba daawadayaal intaysan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aysan ka dhaqaaqin degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, waxaa halkaasi abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamadii ku sugnaa ayuu kula hadlay, wuxuuna u jeediyey khudbad dheer uu kula dardaarmayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee galaya howlgalkaasi, isagoona sheegay in loo baahan yahay in loo turo bulshada ku nool deegaanadaasi, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna ay isku diyaariyaan howlgalladaasi. abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadaladiisii waxaa ka mid ah: cutubiyada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku soo aruuray oo halkan maanta la isugu keenay imaantinkoodu wuxuu qayb ka yahay howlgalka heer qaran ee Soomaaliyeed ee dalka lagu xoreynayo. waxaad ogsoontihiin dalkeenu muddo dheer inuu dhibaato ku jiray, dhibaatadaasna waxaa la isku raacay ilaahay baa ka qaadi kara, laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgala oo waajibaadka ummadda Soomaaliyeed ku leedahay si hufan oo sharaf la u guta yaa dhibaatada looga qaadi karaa. waxaa nagu soo baxay cadow xoog badan maaha, cadow daciifa. cadowgaasi wuxuu awood u helay in dadka maatada laayo, saqiirka dilo, haweenka laayo. maalin dhaweyto baabuur bay qarax ku soo xireen 14 Oktoobar, ilaa iyo 1,000 qof baa dhimasho ee dhaawac noqotay. 28 bishan baabuur meel bay qarax la galeen, waxay dileen nin mas'uul ahaa carruurtiisa oo meesha joogtay. 6 bilood ninkii jiray bay dileen, 6 bilood qof jiray. muxuu awood u leeyahay? 6 bilood hal xabana madaxa looga dhuftay, 2 xabana halkana looga dhuftay. ururka Al-Shabaab ee cadowga ummadda Soomaaliyeed waxaad garanaysaan inuusan qofna wax u hambaynayn. 6 bilood ilmaha jiray hadduu ka baxsan waayey, ma waxaa ka baxsanaya mid qaangaara iyo mid wax garanaya? midna ka baxsan maayo. shaki igama jiro dadkaas waxaa soo dirsaday dad aad cadow ummadda Soomaaliyeed u ah oo jiritaankeenna iyo masiirkeenna iyo ummadnimadeenna inay burburiyaan raba. mantiqadan iyo dhulkaana ummad kala dhaxal siiyaan. waxay isugu jiraan in dad jaahiliina oo wax beena lagu shubay oo la diintu waxa weeye ilaahay loogu dhawaadaa dhiigga dadka in la daadiyo dhiigga bani aadamka, ama muslim ha ahaado muslimiinsan ahaan, in la daadiyo saqiirka, haweenka, odayaasha, dadka abriyada oo dhan la laayo, taasaa ilaahay loogu dhawaadaa. waxa maantay Soomaaliya ka dhacay, Muqdisho ka dhacayna waa taas weey. dad badan waxay isweydiinayaan Somaliland jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka tirsan tahay, Puntland waa ka tirsan tahay, meelo kale waa ka tirsan tahay. maxaa waxaasoo kale uga dhicdhici waayeen? dal haddaa rabta inaad dumiso wadnaha lagu dhuftaa, wadnuhu waa caasimadda wey iyo inta ku wareegsan. waxa caasimadda loo burburinayo, qaraxyada loogu samaynayo, inta kaleba iyadoo dhibaatadaas ay ka wada jirto gobollada dalka oo dhan, haddana waxay xoogga u sii saarayaan caasimadda hadday nabad noqotay qarannimadii iyo dowladnimadii looga haday ku istaagaysa. ummadda Soomaaliyeed waxay maanta inay ka sugaysaa inay ilmada ka tirtaan. ilmada 400 oo qof oo haween iyo carruur u badan baa dhintay, qarax lagu soo xiray. 1 qof baa ayaga ka dhintay. shacabkii Soomaaliyeed oo halkaas dhintay, oo dad badan u agoontoomeen, awlaad badan agoontowday, aabba iyo hooyo badan u gablameen, hooyooyin badan asayda u qaadeen. dadka laga sugaya hawshaas inay qabtaan waa adinka, oo ilmada ka tiraan, oo xoreeyaan, oo cadowgaas ka qabtaan. cadowga cadow daciifa, laakiin taktig yar buu yaqaanaa
oo lagu qanciyo dadkeena juhalada ah oo baadiyaha joogta in la yidhaahdo diintu waxaa weeye inaad isqarxiso, diintu waxaa weeye inaad isdisho, diintu waxaa weeye dhiigga bini aadamka inaad daadiso. shareecada islaamka waxay sheegtaan muslim, anigu ma aaminsan inay muslim yihiin, laanna wixii ilaahay xaaraantinimeeye ninkii xalaashadaa muslima. nooradka kenya waxaa laga helaa niman shaytaanka caabuda oo yidhaahdo qofba qofku ka yar yahay ka awood yar yahay oo la dilaa ilaahay loogu dhowaadaa. waa niman yar kenya waa lagu duulayoo masiixiinta iyo muslimiintu waa tirtireen dadkaas. tiiba kale ayagayoo kale weeye shaytaankay caabudaan. 6 bilood ninka jiray cunuga jiray ninka 5 xabadood ku dhuftay 3 xabadood ku dhuftay ma shaytaan buu caabudaa mase ilaaha raxmaanka ah caabudaa? ka caabudaa shaytaan buu caabudaa. shaytaankaa yidhi dil soo ninkan jahannamo ugu gala oo uu barrinta maalinta qiyaamaha jahannamo wehel ugu noqdo, shaytaanka ugu noqdo. ilaahay qur'aankiisa innagu ilaahay waxaanu ku rumaynay iyo diinta qur'aankaan akhrisannay waa fahamnay, saasaan islaamku noqonnay. soo saas maaha? masaaf iyo ul baa nala dhaco muslim noqdaana la yidhi. qur'aanka ilaahay wuxuu yidhi walaa tuhliku anfusakum, war naftiina ha halaaginina, ha isdilinina, qofkiisa isdilin. soo amar maaha walaa tuhliku anfusakum, ha isdilin haddii lagu yidhahdo soo amar maaha. amarkaas ninkii diiday ishalaagay ka war. ilaahay wuxuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum, war naftiina ha dilinina. waa ma aayad kale, war naftiina ha dilinina. nabiga calayhi salaatu wasalaam nin mu'min ah oo saalix ah oo u taqaana asxaabtu inuu yahay nin mu'min ahoo khayr badan soo dhawow yaa waxaa la yidhi hebelkaasi ka warramayo nabigu markaas nin wanaagsan oo saalix oo mu'min ah ahlu naar weeyu. asxaabtii nabigu dhex taagan yahay. subaxdii dambe jihaad baa la aaday. nin baa daba dhigtay ninkan wuxuu cadaab kugu mutaystay maalin masaajidka safka hore kaaga horreeya muxuu yahay buu yidhi. wuu dabagalay jihaad baa la galay. ninkii dhaawac baa ku dhacay, dhaawacii buu adkaysan waayey, seeftiisii buu qaatay wadnuhu iska geliyey waa isdilay. ninkii wuxuu arkahayey seeftiisa qaadayo wadnihiisa ku dhufanaya. muxuu cadaabta ku mutaystay ninkaas? asxaabta ka mid aha inuu isdilay oo ku mutaystay. waxaan annaga diinteenna waa qur'aanka iyo sunnaha nebiga. waxaas waxay khilaafsan ninkii la yimaada oo dulmiga beddelkeeda la yimaada na waxa weeyaan waa mid ka kufriya ilaahay weeye. wax lagu been abuurtana ilaahay baa u weyn. gaaladaas waa ka xishootaa ilaahay baa saas le inay yidhahdaan waxooday iska walaaqanayaan, laakiin ilaahay iyo diintiisa iyo hawliheeda yaan la taabanin. kitaabka qur-aanka dhulka yaal hadduu arko waa qaadaya, meel wanaagsan buu dhigaya. ilaahay raxmaan weeye, adgeedka muslim iyo gaal iyo kulli adduunka asaga raxmadiisa iyo noloshiisa ku wada siiyey, intuu rabuuna u dulqaadaya. laakiin ninkii ku been abuurta cawaaqib xun la kulmaya. baana ugu dhowaanayaa jannatu firdowsaan ku gelaya, beentiis weeye. wallaahi jahannamo midda ugu sarraysuu ka gelayaa cadaabta ilaahay oo ugu waaweyn. innagaa noo soo hartay 2011 xabaddii aan dhex galay baan ku jiraa aniga caanooda iyo ibraahim iyo guddoomiyaha iyo cali soowi iyo ragga oo dhani. maalin qodaxinama xagan. imise nin baa america iyo yurub iyo ku dhimanaysay sariirta dushooda. imise 20 jir baa dhimanaysay oo dhul nabada joogtay. imise in badan soo maaha. ajasha ilaahay ilaa uu ku keeno ma dhimanaysa. ilaahay ajashiisa ilaa ay ku timaado oo uu calaantaada soo go'do oo adduunka waxaad ka cun lahaad ka dhammaysato ka hor ma dhimanaysid. horta nin walbaba intaa ictiqaadi. dagaalka haddii la galo ma aha in la iska dhimanayo, malagii kuwa galaa dhinta. qaarna waa la isku ciqaabaa oo masiibo dhacday weeye, sida midda hadda baalka qaraxa oo dhacday oo kale. masiibo weyn oo dhacday oo la leeyahay war ogaada cadowgiinii ilaahay waana tusay. ilaahay sunnihiisa waa ka mid inuu baabi'iyo wuu heli karaa, laakiin ilaahay sunnihiisa waxaa weeyaan inuu adiga kugu sallado, inaad iska celisid. aadama uu kaa dhigay adiga mukulaalkaa ma dhigin. 500 wiil 600 wiil baa meelaha warwareegaysa. 27,000 baan adduunka dhan waanu taageeraya inaan iska celin weyno carruurteena naagahana la dilaan. midka mujaca hadda dhishayna xabad lala dhaco caqli miyaa taas? caqli maaha. nabigu calayhi salaatu wasalaam noocooda hore u soo baxay. cali bin abi aalib kuwii dilay weeye nimanka noocooda. cali bin abi aalib muxuu ahaa mataqaanaa? amiira almu'miniin buu ahaa. khulafaa uraashidiintu ka mid ahaa. 7 jannada loogu bishaareeyo ka mid ahaa. aalu beyti rasuulillaahina waa ka mid ahaa. kii nabigu yidhi buu ahaa cali wuxuu ii joogaa
booskii nabi muuse nabi haaruun u joogay laakiin nabi iga dambayn maayo nin baa qur-aanka xaloo dhaakrisanaya salaatula u taagnaa yaa midi dab siiyey su janno ugu galo cali mididii lagu dilay iyo midda hadda dadka ay ku gowracaan waa the same akhriya siirada akhriya khulafada marka laga sheekeynayo waa midi meel laga qabsado leh sida xidigta u qaroofan cawska lagu gurto mididaas cali lagu dilay weli midida waa wataan imisa ka soo wareegtay waqtigaas 1400 sano iyo ka badan baa ka soo wareegtay 1400 sano ka soo wareegtay zaman walba markay soo baxaana muslimiinta markaa joogta ilaahay ku saladaa ummadda ka nadiifiso ka qabata fikirkaaga iyo caqligaaga ka shaqaysii 6 bilood in ma jirayn inta la ilaaha illa allah buu leeyahay allahu akbar qam 6 bilood buu jiraa gabadhi yareeda ka weynaado hal sano jirtana sidoo kale 5 buu la dhacay ilaahay baan u dhawaanaya fadoosan ku galaya ay dowladda xunta oo faasidka nimanka wata inaan la dagaalano way ummadana inaa ka xoreey arabta waxa taala kullu zaman ilaahu rijaalo zamanka saaragiisu leeyahay zamanka ilaahay baa raggeeda naga dhigay kuwa dambe dhalan doonana ma nihin kuwa hore oo tagay oo odayaasha ama baadiyaha joogeen ama dawladda ha ahaadeen waqtigooda wax iska celin jireen ma nihin waqtigan baa kuwa alla isku aadiyay nabigana wuu sheegay wuxuu yiri ninkii doonaya janno kay dilaana janna u ballan qaaday kii dilana janna u ballan qaaday anu waxaan ka mid ahay inta jannada ku raadinaysa iyaga in ilaahay igu siiyo janno ay u galiyo dambi badan baan galay igana dhaafo la dagaalankooda yaan ilaahay ka dalbaday waxaan ka rajaynayaa inaan ku guuleysto ashabaab shartiisa yaa ka magan gala ninka xabadda la dhaca ninka boqorta u laalaadiyo ilaahay waa ku salladaa ninka wuxuu weyn u maleeyana alla waa ku salladaa laakiin haddaad xabadda la dhacdo ilaahay nasrigiisu ku siinaya waana guuleysanaysaa laakiin qalbigaaga markaa xabadda la dhacayso yaad diriraysaa liajlillaah ilaahay dartiis baan u dagaalamaynaa dalka oo la difaaco diinta oo la difaaco shacabkaaga oo la difaaco waa waajib weeye muqaddasa weeye waa fardu cayn qof calaa kulli muslimin bay waajib ku tahay qaangaara hadda diinta waa lagu soo duulay waa diinta la leeyahay faqiirka oo la dilaa janno lagu galaya annagana maxaa la dhihi jiray maxaa janno lagu galaa ilaahay fadligiisa lagu galaa laakiin camal saalix oo lala yimaado oo ilaahay addoon inaad tahay qirato asna rabbigaaga yahay inaad qirato daana alcibaado la timaado taas waa sababtii laakiin fadliga ilaahay baa lagu galaa labo حب الوطن من الإيمان بو النبي عليه الصلاة والسلام دلك هذا أتشعلاتا إيمانك كمتها دلك أقوان كسو الدولين إنها تكدفع لنا واجب يكوتها محل فسادين يا أو مدارستي دين تلقوا برنشري يا حكوبرته وعلا مساجدي بوحي شرتي وعلا قف راكعه ساجده إلهي أسجد سن يا حب الله دعيا قم من صلاة كسب حبا لا دعيا قم من كان يسجد سنة إله واحد كاسومه من إسلام وها بيتكنا محوها مساجدكنا محوها قرية إلهي وها وكدل الدلي شاكا عالمكها أو نكرا مسكينكها والله إنك إن من كاس كقبته آخرية الدون بإلهي عز يا شرف يا كرام وصينية لكن يدعو صالح كدك سلادنا تكو إلهه وحن يسكواس عن ذلك يدين تيدي يددك كقبته إلهه يقول له أجش على كهر ولا ذنبنين يا محمد عليه الصلاة والسلام وحو يري إيمانك وحو قلبك وضبح يصير ليبك قانصد وضبحه زمن كاستلوا صباحيان زمن كحسن البصري صباحان علي بن ابي طالب صباحان زمن دحي ايضا هدنا صباحان ما انا بدك المسلمين تعمل كاس جوات ترتري ما انت الزمن كبي صباحان زمن كان انا ما انت صباح dadka Soomaaliyeed dad muslim weeye dad sunniyiin weeye ilaahay wuxuu siiyay ummadaha dhan lama wada siinin barwaaqo weyn baa ilaahay siiyay dad isku wada midaba isku diina isku luqada isku dhaqana isku madhab ah foon baa la yiri buuxa kay inta tagay waa مسلم بانقرة سالي هذا كله بوح مسلم كه مسلم باندي ما يفهم إلا الشيعة اللي جربوا يسوني عنده بل كان الشيعة اللي جماعة لو سماه مركب وحنا ما مذهب بهربتان سالي يسكت قر ثاني شافعي ما شافعي ما الشيعة سني بالي وسفارد ده المسلم عن كجد البنين في سائح وكان وين بانها دينتنا حبان كأقاني لكن سني نبان كبر باري من سنة على مذهب الإمام الشافعي مسلم منطقة إنجاز أفريقيا دقن يعني ها تكذا صومة صلاة
ما أقانا إسنا عشرية إيا مقعيسي إيا عشواء إيا باهكي اللي يراه قولي محايا هيد بهائية إيا بلاية إيا معتزلة إيا وحس ما نقانا عنه سوالا اللي يراه نعم أسأل نسيه وكحمدي وين وانا لعقابي وانا لشربيا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين وانا لشربيا قاعدة دعيسة الشباب كان اسكو صلدي وحودن جرب ويه haddaan yar adkaysano shabaabkana layno raxmadda ilahay baa soo degaysa dad baa ka yimid adduunka meesha ugu dambeeyo hadda raba inay kugu dhintaan adiga dhulkaaga inta ku soo faristaagaan kula dilaan kan maadaa iskala dadka walilaahi junuudu samaawaati wal ard ilaahay baa junuudda cirka iyo dhulka meesha ka keenaya North America laga keenaya Yurub laga keenaya Aasiya laga keenaya shuqulka ma kii adu waxa iska wada xoogaaday back up ku siiyaan ninkii boqorka ahaayo gaalka ahaayo isha saxaabigu quraanka ku akhriyay arigbu siiyo xooluhu siiyo quraankana waa lagu akhriyaa waana la kaashada waana la heshiiyaa waana la shaqaystaa nabiga kaleey salaatu wasalaam madiina markuu soo garay nimanka yahuudiinta ahaayo quraydiintii iyo kanaaniyiintii buu la heshiiyay ma hayaan been leedii sheegi gaal waxa ah midka banaystay dhiiga muslimiinta gaal waxa ah midka ku hanjabay oo ku hadlay doonaya quraanka inuu bedelo quraan asagu sameeyay ku bedelo قال وها عقيدة أحكام الجهاد كم كبنت كشيء أو يري جهاد كو أن مسلم هو اللي دلو مسلم هو جهاد كله دلو مسلم يا اللي دلو كذي النبي عليه الصلاة والسلام أصحابته دجالنتي سيف بو تاجين مسلم هو نين ما تقدر أصحابته ليني يا لبان مسلم هو سيف توتاكت أسامة بن زيد يعني كلو أنصاري واه كي أنصاري هنيك لا إله إلا الله يمكن سيف تلو تاجي أنصاري حوله بك استاج أسامة ملح كجوي النبي قال الله شيء أقلتلت بعد من قال لا إله إلا الله ما مركو لا إله إلا الله هذا الشيء بيلقي لا هبل بود لا هبل بود وعين تاسو نقل لا يبل لا يوسف نوجيسي مركان سيفت تقول جاي لا إله إلا الله سالي أقلتلت من قال لا إله إلا الله بعد من قال لا إله إلا الله ما مركو لا إله إلا الله يركب بعد هذا الشيء أنت وحي واحد تمنيه لا أذكر محق قال سجاه هم ويدا هذا إسلام ويد توبت كان در كبعدي يا إله كاقبله لا إله إلا الله قفك هو أساس ويه دورك tobanka asxaab soo dilay qiimaha ay leedahay qofka ku dhawaaqa iyo in la ilaaliyo oo cirdigiisa iyo sharaftiisa dhigiisa la ilaaliyo mid leedahay weynaa maxamed hortiisa keenay maxamed baa saas u cadeeyay la ilaha illa allah quraan ku tagnaa wargaal la dilay wax kale dadkan diinta islaamka shumaysan ma dilaan muslim bay dilaan qof la ilaha illa allah leeyahay dilaan horta saas ma ogtiin waxay dilaan qofka muslimka ah waxayna laayaan inta maatida ah haddii maanta niyadeena go'aan aan maanta isla qaadanay ilaahay hortiis inaan markaas dalkeena iyo dadkeena iyo diinteenaba ka xoreyno wallahi billahi nasriga ayaa inaan nooga soo degaya fooqa sabca samaawaati toddoba meesha u sarreysa nasriga ayaa nooga soo degaya ee ilaahay hortii maanta ma isla qaadanaa dalkeena iyo diinteenna iyo dadkeena iyo dawladdeena iyo ummaddeena inaan ka qabanno nimanka dhaalimiinta allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillaahi alxamd ilaahu waa go'aansanay diintaada kuwa dulmiyay dadkaaga maatada iyo maxasti aad abuuratay laayay beenta ka sheegay diintaada iyo quraanka iyo axaadiistaada dalkaas aad nagu noolaysan doonay in naga barakiciyaan aan la dagaalano waa go'aansan ilaahu nasrigaaga maanta noo soo deji ilaahu nasrigaaga noo soo deji ilaahu kuwii nasrigaaga markaad noo soo dejiso kugu xamdiyana anaga naga yeel mid kale aan ii sheegaya maantay xoogga dalka Soomaaliyeed maanta maalin shacabka Soomaaliyeed ka diyaarsan yahay ma jiro lacag bay aruurinayaan dibad iyo daakhilba ciidamada ay aruurinayaan lacag madaxweynihii iyo ra'iisul wasaaradihii iyo xukuumaddii iyo dowlad goboleedyadii oo dhan waxaa la soo doorsaday Soomaaliya jihaad gasho fi sabilillah ninkii diintaada iyo dalkaaga iyo dadkaaga ku soo doola jihaadka fi sabilillah kuwa loo gaa waa kaas ninka gabadha hadda waa inuu kusada hadda halka dhuunta ku dhufato iga istaagtay hadda dhuunta ku dhufato waa jaayir waa xaq weey ninka gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan caruurta Soomaaliyeed oo dhan dalkaan oo dhan diintaan oo dhan masaajidaan oo dhan madaaristaan oo dhan odayaasha dhan doonay inuu halaaga ka war oo raba inuu gowrac nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xoolaha soo ilaahay noo banaan qaladno midada ka qariyo yiri aana waa afeeya ayaguna waa ugu shaleynayaan nin bani aadam oo tawxiidka ashhadu an la ilaaha illa allah wallahu ugu shaleynaya ayada quraan ah la akhriyaya tawxiidku ku dhawaaqaya soo ilaaha waahid ka magaciisa ma وفيريا
waddanka noocaasoo fiir war meeshaas jannaa jirta khayr aakhire khayr adduunba halkaasuu jiraa aan ka doonana meelahaan ku wareegayna iska dhaafno wallaahi bilaahi tallaahi ninka iimaankiisa saalax ka dhigo nimankaa la dagaalama inuu janno gelaya laba haddaad dhimatana nebi maxamed baa jannuu ballan qaaday ilaahay wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa illa waxyu yuuxaa nabigu rabitaankiisa kuma hadlo waxyi weeyaan wuxuu ku hadlo anaa janno ballan qaaday wy waa waxyu ilaahay ka haysta weeye wuxuu ku dhawaaqay kii ayaga dilana janna u ballan qaadu yidhi arrintaas samee waxaabadda dhacda allahu akbar ilaahu dartaa baan u dilayaa dheh xabadaadan waa ku dhicaysaa tiisir biya isu bedelaysaa xabaddan allah maamula meeshay martaa xabada qof wadda inta iska tagtay mid gurigiisa jifa dishaa maadaha halkaas ninkaas u waday waa la wataa bahashaan adigu ma wadati adigu sababta laymow ilaahay yaa malaa'igtiisa hagaysa meesha qofkay rabaan baynu ku dhufanayaan maanta ilbaycaan galnay heshiis baan galnay ilaahay hortiis baanan ku galnay waxa aan aragnayna wax heshiis bayca laga galo oo ilaahiya laga galo oo gacanteenna ilaahay gacantiisa ay ka dul sarrayso oo gacanteenna uu yidhaahdo intii heshiiso na wanaag ku heshiisaba hadday 3 yihiin anaa 4 ku ah hadday 2 yihiinna anaa 3 ku ah buuya gacanteedaa ku ah macnaha nasrigayga iyo awooddeeda iyo ilaahnimadeedaa ku ah weeye aan intaa isla ogaano salaadda hala tukado halgan baan gelaynaa dheer shacabkana waa bislaaday intaasoo carruuraha agoontormowday intaasaa asay qaaday intaasoo aabbayo hooyaha gablamay intaasoo carruuraha meel cidlaa daadsan 6 jirkaagii baa xabad lala dhacayaa qamne waxaad daba sugaysaa maxay annagoo dal raadinayno soomaali ka maqan yaan miinanta isku qarxana baabilo dalaq godka ugu dhihi jirnay nimanka aan la dirirayno hadda nimanka waxay joogaan waa dir dhabaagteeda runtukaa isii sheego muqdisho dhexdeeda saqiirkaaga 6 jirka 6 bilood jir ninka ku dilay ka war markaasaa inaad isku qarxaysa adigu isqarxi anigu kuma lihi sharcigan ma ogola in la isqarxiyo laakiin dil xabadda la dhac qabo hana ka baqin qalbigaaga hadduu ilaahay kaliya ku xiran yahay inaad ka baqdo weligaa gees baa ahaanaysaa laga jecla hayda jecla haddaad tihaado gabgablaysa taraddud samaysana hadda nasiibkaagaad leedahay wax weyn haddaad u malaysana ayuu kugu salladayaa haddaa ayaga balaayo wax weyn u malayso oo casiiz oo ka baqday waa lagugu salladaya laftooda lagugu salladaya ummaddan ninba meel buu istaagay annagoo calankeena ilaalino xorriyadda qaranka ilaalino dowladnimada ilaalino shacabka iyaga ilaalino baanu ku dhaarannay ummadda soomaalida ballanqaadkaasaan la galnay waa laynaga sugayaa ilaahayna wuu nagu arkaya waxaan u malaynayaa nasriguna waa noo soo degayaa qalbigeennu waa israacsan yahay shacab iyo dawlad iyo ciidanba waa israacsan yahay maantay ilaahayna waa arkaa waxa dhacaya wuu arkaa ilaahayna qofka daalimka ah uma gargaaro ee kala dulmiyey buu u gargaaraa annagoo kuwa la dulmiyo carruurtooda la laynaya baana dadkooda la laynaya baana guryahooda la qarxinayaana maalkooda la dhacayo la boobayay baana lacag waryaa halkaas zaka ka keen madaxaan kaa goynaya haddaadan keenin zakada ilaahay yuu siiyaa inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin walfuqaraa'i walmuhaajiriina walcaamilati caleyh walmu'allafati quluubuhum kuwaasaa zaka loogu talagalay nin amiiruhu inta lacagta ka aruursaday naa ku guursado looguma talagelin ama guri ku dhisto isagu intaasuu ka rabaa nin sheekha hogeel leh culammada soomaalida ah yaan idhi soo meeshaa joogta geeliisu nimankaas ma jooga haa buu yidhi zakawaadkana waa siiyaa ti alla igu lahaana waa bixiyaa yartana waa baane midda baadaana waa siiyaa buu yidhi ila geel o dhan bay qalqalanayaan inta u yimaadaan bay xabad la dhacayaan ii sheeg middii ilaahay igu lahaana waa bixiyaa dadku ugu talagalay baan siiya haddii aan ka laalaabano dhalinyararkaa quruxda badanoo iyo muuqata wallaahi bilahi adnaan masiir fiican helayn carruurtiinuna raaxa ku raaxaysanayn inaan dhibtoonna maantay carruurteennuna qarannimo dawladnimo diintooda xor u ah masaajidooda xor u ah madaaristooda xor u ah dalkooda xor u ah dawladnimo iyo qarannimo ay ku raaxaystaan carruurteennu xoogaa yarna aan dhibtoonnoo lugayno xabaddana la dhacno nimankan waa intaasoo keliya nuclear ma haysto madfac ma haysto diyaarad ma haysto taangi ma haysto hoomey buu haysta hoomey adna kalaa haysataa maxaa uga cararaysaa intaasoo kisbiir baa isu kaa taalla dhiishiika iyo tedhisan baa wadataa hoomey buu haystaa hoomey haraati haddaa ku dhufata xagga u dhacaysa 2 nin haddaan heesaasa ugudii karnaa hoomey hoomeydiisiibuu psychologically wuxuu nooga dhigay taagi waa been ninka uu wata ma taqaanaa wil yaro hadda baadiya laga keenay wey aqoon-yahan ma wato nin cilmi yaqaan ma wato saynis yahanna ma wato khubaro istaraatiijiya ma wato waxba ma lahan
niman ajnabi xoolaha lacag u soo tuura waxa la dalkaaga gub dad ahaan baad ka awood badan tahay caqiida ahaan baad ka sarkaysaa qalab ahaan baad ka sarraysaa ummad ahaan baad ka sarraysaa waxaase magacaab ba'ay maalinta aad tidhaahid rubuc jaadana waa cunaya habeenkiina waa seexanaya qorina halkaasa soo dhiganaya wuu ku imaanaya qorigana waa kaa qaadanaya waana kugu dhufanaya ninka bani aadamka oo noolna waa inuu ka fekeraa maanta aad nooshahay berri waa aakhiro maantana waa adduunyo maanta see ku noolaanaysaa sharaf iyo karaamo ugu noolaanaysaa ummadaada iyo carruurtaadana ugu noolaanaysaa dagaalkii labaad adduunka markuu dhacay 40 milyan oo qof baa dhimatay 26 milyan Soviyetka ahayd Russia u badnay 26 milyan iyadoo laga dilay isdifaaceen oo Jarmalkii qabsadeen 12 milyanna waxa la yiraahdaa Jarmal bay ahayd 2 milyanna Yurubtu uu qabsaday ka laayay 40 milyan ma Jarmalku waa isu yimaadeen halkii nin waxa ku soo aadantay 200 haweena waxa la yiri amaanta dhibtoon carruurteena ha raaxaysato macna markan adduunyada ka hadlayna way shaqeeyeen maanta Yurub oo dhan iyo adduunka ugu horeeyaan dagaalkii labada adduunka dadkii dhashay baa jooga aniga wax yar 10 sano iga horeeyay 46 uu dhamaaday 10 sano iga horeeyay marka adiga aadama alla ka dhigay inaad wax la soo baxdo dalkaaga inaad difaacato inaad dawlad noqoto dhulkiina wuu ku siiyay dhul qani ah oo barwaaqa oo shidaal leh oo xoolo leh oo beero leh oo wabiyaal leh oo macdan leh oo wax walba leh oo dahab leh baa alla ku siiyay wax yar oo nabad ay u baahan tahay ninka xunka hoomeyga wato oo midada xunta qaroofan ninka toroboora ka yimid soo dhiibay Asiyaatiga midada ka qaad madaxana ka go haddaad aragto inuu saqiir yahay oo uu hanuunsami karana soo kaxeeyo waxa taada kan waa hanuunsamaya hala kaxeeyo hadduu qaan gaar hanuun ma leh hadduu sanad iyo laba la gaarin rajo ma leh marka ala kulli xaal arinta hadalka waa dheereeyay walla hawlgalayaa hawlgal heel qaranaha la galayaa gobolada dhan hawlgalku waa ka bilaabanaya innaga hormuudna waxa uu ah meel kasta oo hawlgal ka bilaabanaya xooga dalka shacabku aday kula socdaan ka daba alalaasayaan aan ii sheeg booliiska uu kula socdaa dawlad goboleedyada annaga dabadeena socdaan biyaha raashiga naga daba keenan baa la rabaa hormuud adaa wixii ciidanaada hormuud ciidamada qalabka sida bulsho weynta Soomaaliyeed iyo maamulkooda ku daba socdaa ilaa madaxweyne laga soo bilaabo war fursad habiyaan maanta haysanaa dalkeena aan xoreysana carruurteena beero fiican aan u jarno saas ma la tahay allahna waafajiyo khayr baan rajaynayaa hal kale ogaada insaanka ilaahay wuxuu siiyay maskax jirka intiisa kale waa aalo motorka baaburkan saa kaciya taayirku motorka miyuu kicin karaa qolofkaas weyn ma kicin karaa inta halkan ku jirta halkan hadaa ku ciyaarto jidkaan oo dhan baraleed eber buu noqonayaa halkan ilaali maxaa lagu ilaaliyaa cibaadada ilaahay ku ilaali haddaad wax barasho heli karto ku ilaali daraagana ka ilaali asigaa dilay man dooriya jaadka aabbo ah mid kale ku soo xigo mid kale ku soo xigo mid kale ku soo xigo wala cadow ah noo beerto boobiyaasha jiinankiisu nooga beertayo hadda askariga hadda kula jooga waxa ka saa indhihiisu xagga u sii jeedaan Allah naga qabto taasoo khatar kale weey Allah naga qabto waxa weeyaan runtii waa masiibo ayaduna nahaysata weey laakiin qalbiga oo la hagaajiyo cadawga kale waaweyn oo dhacmaysa oo kala korayaan baa loo qaaday cadawgana iska saarno ka daraagaan aan niyad fiican ka yeelano aakhirkana asaga aan zuulino ummadana iyo dalkeena waa tana warshadii halka marata warshadii balcad Soomaaliya oo dhan markay soo saari waska agoontaas ka jabtay alaabtii qalabku waa dhex yaalaan waa dadkii cariga deganaa waa ilaaliyeen khayr Allah siiyo dadkii deegaanka waa ilaaliyeen motooradii waa yaalaan suufkii iyo wixii baa qolad damacday waa loo diiday habeenkii dab galiyeen meelahan guguban sameeyna arag stoorada guban waa suufkii dharka laga sameeyay anigu waxaan soo gaaray ayada iskuulka lacag la iga qaadanay dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare jaamacadda markaan galanay 9 shilin waa la isiinay qol iyo mas'uul isku dhex yaalana waa la isiiyay cuntadana waa cunaya ardada dhan maana saas ahayd Soomaaliyeed min zeyl cilaaraas keen booniyaa keenay ma dawladda lacagta ayadoo lahayd maya qarannimada iyo dawladnimada keentay qof ma keenin madaxweynuhuna ma lahayn madaxweyne ku xigeenna ma lahayn wasiirna ma lahayn qarannimada iyo dawladda carruurtiina taa aan u shaqeyno xogaan dhibtoona yar isdaan isku niyadna hana 3 jeer 3 weerar aan ku jabinay ku xirantay gabadhooda 3 weerar oo la jabiyo ee taktikada aan bedelo habka taktiga aan bedelina waa hab cilmi military strategiga anaga soo diyaarinayna dabadna waa isu sheegi doonaa waana fulinayna
wax yaroo geesinimaya waxay rabtaa inta la doonto xabad lagu dhufto qam u carar orod buu sii ganaya haddaad xabadda ka daysidna guriguu imaanaya bacd madow oo qarxaysa asagoo wata iyo guriga kugu imaanaya ninkan wax weyn buu sameeyaa qarax buu sameeyaa ma aha been weeye annagaa samaysan jirnay miinada taangiga lagu qarxiyo ay tamyadan ka sheegan jirnay waa hadda wax dukaamada lagu gado kana sheekayn maayo warbaahin baan ku jirnay tumora waa 10 inta soo samaysanna markii shaashkada taangiga habashiga dalkan kale la diray lagu qarxinayo baabeega alaabaan ku ziyaadin jirnay baa jirta oo isla waxyaabaha dukaamada lagu gado iyo waxaas kale waa haystaan iyo baarido yar yar iyo la isku daro taangiga cirku tuuraysa 55 kaysiga tuuga cirka geynaysa waa intii baa hadda noo fiilo noo waxa remote yar iyo nalagu sameeyay remote-kana waa frontier-ka midka saas lagu dhaxso aan baarkay disk shaashada haween ma على كل حال وهو الباء إنما الأعمال بالنيات عمل أردوان نيته waxaad sameynaysid ilaahay dartiina u sameeyay laajli ilaahay marka aad rabto ilaahay nasrigiisa inuu ku siiyo guusha iyo magaca ku siiyo qalbigaaga xasiliyo ilaahay dartiisa ilaahay u niyeyso ilaahay waxaan maanta u dhaarto diyaar u ahay inaan diintaada iyo dalkaaga iyo ummadaada iyo shacabkaaga masaakiinta iyo saqiirka abuurtay ka badbaadiyo dulmi daalimiinta horarka ilaahay aan ka badbaadiyo intaas maanta kuugu dhaarto qorigeena waa qaatay ilaahay garabkayga galbaad leedahay xabada hadii ku sarta caanood u sheego arniyadaas fiican la imoo ilaahay waa ku maqlaya حول مريض كان وقدوا نهبي حول مريض كنا أنا كقدوا وشاك بوير نعم محمد ودتك عبد الله حول مريض كان وقدوا وشاك قلب قاضي أنا وقمنا إن يدور عمل قاضينا وان يده أن هذا الكواب بديهي إنه أنت سلوه كأنه فرصة ما أنت حاجة ذلك الصومالي وهايستوى فرصة أعطوا بلارن شعب كالصوماليات من زيلة إلى راس كيمبون الديار وحيين الدفاعان إن علوا إسكعليان oo mantiqada Soomaalida iyo gayiga umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ma laga zuuliyo dadkaas xooga dalka Soomaaliya baan hormuudnimada ma qaadanaa waxaan dhahnaa booliiska naga hormadayo nabad sugidda anagu maanta waa iska liidanaa haye okay waa qaadanayna Allah na guuleeyo Allahu akbar Soomaaliya ha noolaato ha israacdo sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa iyagana ka soo dhaqaaqay isla degmadaasi waxa ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Jambaluul iyo Balad Amiin oo hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose iyagana maleeshiyaadka halkaasi ku sugnaa way iskaga carareen ciidamada ayaana si nabad ah u la wareegay sidoo kale ciidamadii ka dhaqaaqay deegaanka Dani Balow ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe balcadna hoos tagta waxa ay iyagana u soo dhaqaaqeen deegaanka Basro ee gobolka Shabeellada Dhexe isla markaana xadka kala qaybiya gobolada Shabeellooyinka ciidamada halkaasi si nabad ah ay ula wareegeen deegaanadii waa deegaanka Basro maleeshiyaadkii farakutiriska ah ee ka tirsanaa kooxda gobolkooda oo sii dhacay al-shabaab way iskaga carareen oo ciidanka ayaa si nabad ah ula wareegay waxaana halkaasi ay ka sameeyeen waa wadada isku xirta ee degmooyinka Balcad iyo gobolka Shabeellada Dhexe howlgallo lagu baadigoobayo maleeshiyaadkaasi isla markaana ciidamadu waxay ku gooleysteen in halkaasi ay ka saaraan ilaa iyo 5 miino oo kooxda al-shabaab ay wadooyinka ay galiyeen iyagoo doonaya inay ku dhibaateeyaan dadka iskala waa dadka gaadiidka saaran labada degmo dhex maraya oo qudaarta sida iyadoo aad la socotaan in bilo ka hor halkaasi ay ku qarxiyeen ama miino ay u dhigeen gaadiid nooca la yiraahdo homeed oo ay saarayeen dad u badan haween oo qudaar siday oo degmada Afgooye ka soo dhaqaaqay balcadna doonaya inay tagaan miinada halkaasi ay kula qarxaday 6 qof ayaana ku geeriyootay ciidamadan waxa ay ku guuleysteen in miinooyinka halkaasi ay ka saaraan kadibna waxa deegaanka Basro markii la wareegay la hadlay warbaahinta qaranka abaandulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdullaahi Cali Caanood waxaana weydiiyay su'aalooyin ku aadan sida ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay kula wareegeen deegaanadaasi iyo waxa xiga howlgalkan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah abaandulka taliyaasha guutooyinka tali ururada tali horinada tali kooxyada tali unugyada dabley assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سلام كدب ارتوحي هذا هذا أبندور كان نور دمي أنا وحا أمرينا أنا إذن هم بليايو إذن مهد عليو
idin idhaahdo deegaankan dadka degan waxay u heelan dhaqaaqiin inay biyaha iyo caanaha idinla daba kacaan inaan intaas idin idhaahdo waxaa kala rabaa inaan baaq u diro oo u mahad celiya ayagana dadka muxsiniinta soomaaliyeed xooggoodii iyo dahabkoodii iyo dhaqaalahoodii ugu deeqay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayagana ilaahay waxaa u baryaynaa inuu maalkooda iyo ehelkooda iyo cirdigoodaba u barakeeyo ayaa ilaahay ugu baryaynaa waxaan rabaa wax badan inaan ku daro ma rabo hortii rag dhallinyaro ah oo u taagan qaranka soomaaliyeed inay difaacaan oo intaa leegana soo hor istaago hortii waa ilaahay mahaddiis ayagana u mahad celiyaha allihina abuurana u mahad celiyaha oo alxamdulilah ayaan leeyahay midda kaley horta ragga lala diriraayo waxnama dhaamaan way naga liitaan haddii si saxda loo hadlo haddii awood ahaan la yidhaahdo haddii cunno la yidhaahdo haddii nidaam ahaan la yidhaahdo haddii dhinac walbay nooga liitaan haddana maanta waxaan aaminsanahay in qofkii asoo qarankiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa difaacay u dhinto inuu shahiid yahay waxaa dhacay qof waa dareemi kartiin 350 qafood amba 400 qafood qof kasta hay u qaatay dhahaya janno aado inuusan janno gelayn annagana waa ognahay ayagana waa og yihiin laakiin hadda ilaahay subxana watacaala iskale awoodaasaana ka camal siinayo camalka uu qofkaas la tagay ilaahay hortiis maxaa yeele qof walbo maalinta aqar waxaa la soo istaajinaa wixii ay ku dhimatay gacanta ku haysa iyadoo ku haysa soo istaagay hadda kii 300 qafood dilay ayagoo ka raaracaan oo dhahayaan biayi dembin qutilat maxaa dembi oo kaa galno noo dishay ayagoo dhahayana ilaahay waad hor istaagayaan waxaana ognahay hadda nimankan soo jananka u sheegay abaanduulka cali ibn abi daalib iyo cumar bin khadaab amiirulmu'miniin nimankii dilay waa nimankan maxaa yeelay waxaa ka dareemi kartaa kii dilay markuu dilay oo kor istaagay oo midida kor u taagay muxuu yidhi ilaahow adaa kuugu dhowaanayay uu yidhi kuwaan hadda maxay leeyihiin jannaa ku gelaynaa ilaaha ugu dhowaahay nama taagno waa meeshii ay shalay taagnaayeen ee khawaarijtaas maxaa yeele nabiga alayh salatu wasalaam asay dhahayeen cadaalad fali maysiga nabiga rasuulka ilahay dhahayeen rasuulka ilaahay beenna ma sheegi jirin qofka cadaaladsanna ma jirin xilligaasay dhihi jireen ada cadaalad mahayd cali ibn abi daalib gabadha uu qabo xaaska u ahayd waa la yaqiinay ilmahay dhashay marka waxay ahayd faaduma bintu maxamed bint rasuulillahi gabadhii rasuulkayna ou dhalay ahayd gabadha uu qabo marka rag meeshaas taagnaa ee diinta ka taagan maanta in annaga nafsiyan u baqno ani ma qabo maxaa yeelay aniga aqoon buuxda u leehay ayaga ay garaafeen ayaga inta ay gaarsiin waxaan u taaganahay inaad dadkayga qarankayga badbaadiyo una dhinto intaasaa u taaganahay anoo haafe ee haafe ka soo reebeen haafkii haddana ku daba taaganahay oo aad taaganahay waddan qaldan aa ku socotiin ilahay ka cabsado marka waxaan rabaa qof walba inaysan cabsanin midna waa jirtaa qofka dhimashada ilaaha haayo maana bini aadan ma haayo 120 habeen adoo caloosha bartaa ku jirto oo aanan weli hataa hilib isu bedelin aa laguu qoray ajashaada xilligaa dhimanaysid waxaa ku dhimanaysid iyo camalkaada way kuu qoran yihiin ma bedeli kartid mana samayn kartid adiga maanta ma dhihi kartid waa dhiman rabaahe taliyo badbaadi ma dhihi kartid haddii uu asiga iska hor taago hadduu ilaahay kugu talagalo waa dhimanaya laakiin sababaa jirta qofka ku dilaayo waa in lagu sababaya sabab aan kuu dishaa waxaa aaminsanahay dadkii islaamihii berrayda guranayey ee masaakiinta ahaa ee ilmahoodii qadaayey miina inta u dhiga ku qarxiyey inaysan muslin ahaynin qafnaysan isxaamaynin waa dad baadiyoobay ilaahayaa baadiyeeyey laakiin dadkayna annagaa nagala rabaa inaan ka xuraysanno laakiin ogaada shahiid waxaa ah man qutila duuna nafsihi fa huwa shahiid man qutila duuna ahlihi fa huwa shahiid man qutila duuna cirdihi fa huwa shahiid wax kalama jiraan haddaad nafsadaada iyo ehelkaada iyo sharaftaada alla faka weysid haddii aad dhimatid shahiida tahay waa wax saxa maxaa yeele ma dulminin asaa ku dulmiyey ma raadsan asaa ku raadsaday maxaa yeele haddii uu ku yidhi ha dukanin muslim maahid war salaada allah igu leh salaada hadda ka soo baxa waa ku diray waxaani fiirsaday canjal la dhahaayo nin qof la qalaayo ee dhahayso laa ilaaha ila allah loogu bedelaayo laa ilaaha illaa ha ku badbaadiso anaa fiirsaday canjalkaas anaa fiirsaday marka xadiiska waa maqlayseen uu sheegay jananka usaama bin zayd nin saxaabi oo ahaa qofka erayga la su'aalo wuxuu ahaa ma adaa inta kale fayda ogaatay inuu gaala laa ilaaha ila allah uu yidhi maalintii yawma alaakhir intaa ka gelay laa ilaaha ila allah nabi alay slam wuxuu yidhi beriyaa ka ahay qaalid markuu gafka geysta nabigu muxuu dhahay wuxuu qaalid geystay beriyaa ka ahay ilaahu beriyaa ka ahay waana saxaabadii maxaa yeele gafka qofka muslimka oo lagu xadgudbo wax saxa ma aha
wax qaldan oo weyn waaye waxaa jirta hal qodob dembi ilaahay laga galo kee u weyn ashirku billaah ayaga hataa culummada ay sheegaan dad madluumiin aan nahay la dulmiyey dadkooda iyo deegaankooda loogu yimid maxaa yeele canugu 6 bilood jiro ninkii inta dila dhahaya jannaa ku galaa 6 bilood aanan weli hataa gaarin in camal loo qoro 6 bilood iska dhaaf inuu sanooyin gaaro waxaan leeyahay marka warkiyaa ku dheeraanin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed annaga waxaa u heelanahay inaan biyaha iyo raashinka iyo daawada idinla daba taagnaano shacabka Soomaaliyeed way bislaadeen way macaadeen way ogaadeen fikirka inuu fikir qaldan yahna way ogaadeen waxa baaqo dira culimada Soomaaliyeed waxaa leeyahay garab istaaga ciidamada una sheega inay wada sax ku taagan yihiin dadka ay la dirirayaan yihiin dad mujrimiin ah ilaahay ku kufriye waa dad mujrimiin ah ilaahay ka hor yimid dadkii muslimka inay dilaa u taagan marka waxaa leeyahay warka waa soo kooba madaxda qaranka Soomaaliyeed oo ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayagana waxaa leeyahay ciidamada dhiirigeliyo oo gunadii iyo mushaarkiisa naga soo daahay inaad bismillaah alxamdulillaah thanaa lillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadda meeshaan joognaa waa magaalada Basra oo ka mid ah tuulooyinkii ururka al-shabaab ee cadowga shacabka Soomaaliyeed uu qabsaday ummadana uu ku baadiyay kana qaadayay waxaan kaloo shalay soo marnay oo soo qabanay maya inaa soo kugu daayo xaalad adag ku jirtay bismillaah alxamdulillaah thanaa lillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wa alihi wasallam meeshaan hadda joognaa waa tuulada Basra oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe oo ah xuduudda gobolada labada gobol Shabeellaha Soomaaliya yaa kugu yiraahdo Shabeellada Dhexe weeye soco inaan ku celceliyo bismillaah alxamdulillaah waxaan joognaa hadda waa magaalada Basra oo cadowga hore u qabsaday al-shabaab cadowga shacabka Soomaaliyeed waxaanan lagala wareegay shalayto 11kii 5tii galabnimo waxaan kaloo shalayta gacanta kaga dhignay tuulooyinka Daniga iyo tuulada la yiraahdo Buulo Barwaaqo dhanka kale ciidamada xoogga dalka ee ka soo howlgalay degmada Afgooye Jambaluul iyo Baghdad bay kala wareegeen iyo Shariif Cabdinaasir beertiisa ay dhinac kaga jireen cadowgii wuu cararay laakiin kooxa waxay ku harsan yihiin meelo aan ognahay oo cayiman insha Allah waa uga daba tegaynaa maantana waa inaan ka sifaynaan rabnaa maalmaha soo socda xooggiisiina wuxuu aaday meel aan anagu ognahay oo 3 gobol xuduudood ah ayagana waa uga daba tegaynaa insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa mar dambe inaysan shacabka Soomaaliyeed ee deegaankan aysan dhimin iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed hawlgalkan maanta aan samaynay wuxuu hordhac ka ahaa hawlgalkii heer qaran ee la bilaabi lahaa kaasna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed